kale lamidkiina kuwii kusoo dadaalayay hawlaha ayay ahaayeen shirka muhiimka ee qaaliga ah ee maanta lagu soo dhaweynayo halgamaa garaad bashiir maktal runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay kasoo qayb galo xaaladaha uu xambaarsan yahay awgeed in yar haddaan kor istaago garaad bashiir waxaa weeyaan waan shaqaanu iskula qariibnay annagoo tira yara ayaanu shaqa halkan iskula qariibnay oonu wada qabanaynay runtii waxaa weeyaan maalintii la qabtay ma aanan lahayn shaksiyan macnaha dib baa loo arki doonaa xaaladii uu ku sugnaa awgeed maalintiina runtii waxaa loo haystay tir adag runtii uu ka baxay halganka ayay ahayd laakiin allah raxmaanka ah ayaa suurto geliyey inuu maanta ina hor joogo oo uu meeshii maaragtay ay dhibaatadu ka gaadhay uu maanta lagu soo dhaweynayo runtii farxad gaara ayay noo tahay islamarkaana uu dalkiisii tegay oo weliba lagu calay masaaro uu maaragtay uu garaad kusoo noqday oo uu nabadgeliyo maaragtay uu ku joogay farxadna uu dadkiisii kusoo dhex joogay waxaan leeyahay garaad soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maaragtay kugu soo dhaweyno halkan oo aanu kaga qayb galno shirkan aan maanta jaaliyadda u qabatay runtii aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay runtii waxaa weeyaan hadal badan uma istaagin halgankeena iyo taariikhdiisa iyo hawlihiisuna waxaa weeyaan kuwa aad u dhaadheer waqtiga aynu galayna sida aad xubnihii hore ee mas-uuliyiinta ka maqasheen waa waqti adag halgankeeni waqti adag buu galay wuxuuna u baahan yahay dadaal dheer iyo shaqo zaa'ida jawxa waxaa lagu yaqaanaa istacayl waxaa lagu yaqaanaa gacmaha inay isqabsato waxaa lagu yaqaanaa inay milkiso runtii waxaa weeyaan tii unbaynu haddana u fadhinaa maanta kaynu ku jirana taasaynu kaga bixi karnaa marka waxaan aad u rajaynayaa xubnihiina fadhiya iyo inta inaga maqan iyo inta gudihiisa jirta inta dibadaha jirta intaba inaynu noqono dad gacmaha isqabsada halgankoodana sii lamagaabo dadaalkiisa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waqti dheerna mida ka qaadana ma rabo waxaan leeyahay dadaalkii aad wadeen sii labalaaba hadafkeennii waa halkiisii dalkeennii iyo dadkeennii innaga ina sugayaan xornimadii ummaddeennii innaga ina sugaysaa dadkeennii inuu ummadda la sinaado innaga ina sugayaa ilaahay waxaynu ka baryana ilaahay inagu simo inaynu gaadhsiino goolka aynugu talagalnay marka waxaan leeyahay sidaa ayaan idinku nabadgeliyeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsan tahay marwa halganto cibaadada xirsi mahad ogaadeenya ha harowdo guud ahaan baa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u rajaynaynaa midnimo iyo wadajir waxaan haatan u yeedhayaa muhiimadii shirkan ama munaasabadan ama xafladan soo dhaweynta aan u qabanay garaad bashiir garaad maktal garaad bashiir garaad axmed garaad maktal daahire kusoo dhawow mudane mikrofoonka والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وهرين في العشاء شرفت له خدمي الأبرار والمناسب وحمد الله العليم يسجل رسول وسيل قال يا أجيرا ربتي أنا كوبي كريم بريك يا مانتا وأنا كم هالعليا مركب الله حكم هالعليا mas-uuliyiintii soo qabanqaabisay iyo tifdintii jaamiyadda shirka soo qabanqaabisay iyadana waan mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dowladda kenya oo runtii u noqotay halgankeena buldhig ama muxuu aha gabaad u noqotay muddo dheer ayaa si gaar ugu mahadcelinayaa dadka qaar waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan dowladdii ku dhiibtay ee sanadkii kuu gashay miyaad wax mahad ugu haysaa mahaddu waxa ayay gaadhay maaha halganka weeyaan waxaynu ugu danaynayna amaynu ka hadlayno runtii habeenna niyad xumo uma qaadin sababtuna waxa weeyaan waxaad u qabanaysay halgankaa ka weynaa ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd salaan shaqo uma aanan dhibanin kormeeda ma ahayn laakiin salaan iyo heertinimo oo dib u korxishiin bay ahayd sidaasaan ugu jeclaaday inaan maanta in kala soo qayb galo haddii aan usoo dhaadhaco hadal yaroo kooban oo ku saabsan halganka wax yar baan doonaya ka hormariya inkastoo guddoomiyihii jawaabta uu maaliyo halkan kaga tegay wax badan oo war oo idinku seegalay ma jiro laakiin waxaa laga yaabaa intii guddoomiyihii kasii maqnaa waxyaaba yaryar oo shaqadiisan hore isku maqlayseen oo isbedelo oo ka socda xagga gooshinkooda inay jiraan
xaqiiqo in aynu maskaxda ku hayno waxa iman kara beri iyo waxa halgankeenu ku dambayn doono aan ku dambayn karayn halgankii dheeraha aynu kusoo jiray aynu aaminsanahay inuu sabab u ahaa burburkii ku dhacay dowladdii cadowga ahayd shacabka Itoobiya u horseeday in lagu dhiiran karo xukuumaddii nacabka ahayd oo laga adkaan karo waxa weeyaan isbeddelkaas way ku neefsanay nacaw baynu dareennay aynu dareenno fursad bayna siisay waxaan rajaynaynaa fursadda inaan ka faa'iidaysan iyadoo fursaddu sideeda tahay waxyaabaha la fili karaya inay ka yimaadaan waxaa laga yaabaa Itoobiya in isbeddelo ka yimaadaan cusub oo kuwii hadda aynu ku dhex jiray aan ahayn hore sidaynu u maqalay isbeddelka Itoobiya ka socda weli ma uunan dhammaystirmin wuxuu ku dhammayn doona cidina ma og waxaa laga yaabaa shacabkeenu in wax badan oo laga wado jaaniyaheena ay kow ka yihiin inay aaminsan yihiin in la xoroobay ama calaqala muxuu ahaye bulcoomana sii yahay oo xorriyaddii lagu sii socdo oo hawsha xoroobiyey dhinaca looga dhammaatay mararka qaarkood oo odhanayo dhaqaalo looga baahna innagaa waxaa hadda ka sugayna dhaqaalo laakiin waxaan jecelahay in is-xusuusino Itoobiya meeshay maraysa iyo waxa suurtagalka ay ka yimaadaan Itoobiya innaga oo rajo fiican weli qabna oo rajo go-aynin oo weli dadaal fiican inaan nabada ku gaarna doonayna hadafkeenii aynu muddada oo soo daba soconay aynu nafta iyo maalka u huray innagii oo rajo fiican ka qabnayno si nabada ku sii wadano haddana wax kasta filo in loo diyaargarooba fiican isbeddelka Itoobiya ka socda qayb ka mida waxaa weeyaan xukuumadda talada haysaay qorshe cusub bay soo rogtay qorshahaasina waxaa weeyaan in dowladda laga sameeyo ama waddanka laga sameeyo xisbi keli ah oo waddanka ka taliya taa macnaheedu waxaa weeyaan wuxuu ka hor imanayaa nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd ee midnimada jaaniskiisa ka faa'iidaysanay wuu ka hor imanayaa wuxuu ka hor imanayaa nidaamkii ismaamulka ahaa ee sheegashada inay degaan gaar u leenahay wuu ka hor imanayaa nidaamkii federaaliga ahaa ee waxna la kala lahaa waxna la isku lahaa wuu ka hor imanayaa hadday suurtagal noqoto oo uu guulaysto isbeddelkaas ama la doonaya halkan keliya la samaysto lala ansixiyey oo axzaab hadda sideedii ay ku midowday haddii uu hirgalo waxaa ka iman doona wax aan garan karama waxaynaan u garan karaynin waxaa laga yaabaa dabada inuu ku hayo oo aada loo filaya dabada inuu ku hayo in la doonayo in la soo celiyo nidaamkii kegitaniska ahaa ee dowladda dhexe awoodda badnayd maamulada kelimadana la baabi'inayo ama lagu naaqusayo taa waxa ka dambeeyana waad garan karaysaa waxaa suurtagal ah in loo qaybiyo Itoobiya 4 ama 5 qaybood oo maamuleed loo qaybinayo la odhanayo bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga iyo dhexda iyo waxa la mid ah taas oo macnaheedu tahay inuusan jiri doonin waxa la yidhaahdo qowmiyad nidaam qowmi inuusan jiri doonin baa suurtagal taa haddii ay timaado innaguna waxaynu higsanayna aynu ognahay waxa inoo horseedi karta wada garanay sidaa darteed ciddii u malaynaysa inuu halgankii midhisiida dhow yahay ciddii u malaynaysa inaynu tagi doorasho gallo oo aynu doorashada ku durdurino maadaama aynu taageero badan leenahay inaynu dowlad noqonayno qaadaha dambe inooga baahanaynin ama midnimo dambe inooga baahanaynin ciddii aaminsan dib haw xisaabsanto wax ka imanaya laga garanaya intaas waa xog yar wey haddii aan marka ka soo gudbo waxaan jeclahay wax yar inaan ka idhaahdo halganka iyo ururnimada cidna looga sheekayn maayo carruurta iyada hadda soo koraysa mooyaane halganka dhibaatadii aynu soo marray oo meel kale inagoon eegin jaaliyadantada Nairobi ama East Africa dhibkii ay u soo marray keliya haddaynu xisaabino ee dil ahaa ee dhac ahaa ee shaqo qabasho ahaa qof walba wuu qiyaasi karaa intaa waxyeello kale la gaarin cabsidii iyo argagaxii lagu jiray qof walba wuu qiyaasi karaa halgankii nooca ahaa weli waxa weeye isaga badan loo soconaa waxaana ku dheereynaynaa waxyaabaha hadda aan sheegahayo taa
macnaheedu waxaa weeyaan waxay u baahan tahay inaynu si hor inaynu guddiga geesha sooga dhigno innagoo ama aynu gaarsiino xurriyad shacabka ogaadeenya ama jiilka iyaga soo kacaya aynu ku wareejino sidii hore u ahaan jirtay laakiin geedi dheer baa weli naga horeeya geedigaanu diyaar garoonaan u baahana geediga waxaa loogu diyaar garoobi karaa innagoo ilaalina wixii isu keenay wixii aynu ku midownay wixii aynu ku walaaloonay innagoo ilaalina wixii aynu guusha ku soo gaarnay ee 30 sano dowladda Itoobiya iyo caalam fara badan oo shisheeye sokeeyaba leh oo isugu keentegay uu guulgaraystay inuu halgankeena baabi'iyo waa la wiiqay shacabkeeni waa la wiiqay xooggeeni waa la wiiqay laakiin mooraalkeeni iyo qalbigeeni lama wiiqin markaynina lagama qasbina ka noqon sidaa daraaddeed waxa weeyaan waxaa isu keenay ee aynu guushaana ku gaarnay waxa weeyaan waa midnimo iyo ururnimo wey haddii aan mid la noqonin waxaan waa garanaysaa inayna waxba qaban karin waxba ku noqon maayo sheekhu aayadihii uu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan ifkan iyo koonkan abuuray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxay ku socdo lagu amrahayay innagana cashirka linooga dhigayay inaynu ku tababarano loogu talagalay waxa weeyaan midnimadu macaha ay leedahay ayaa lagu baray sidaa darteed midnimo waa asalka halgankeeda weeyaan asalka waxa aynu isugu nimidna waa midnimadaas waxaa marka imanaysa maxaynu ku midoobay waxaynu ku midoobay mabaadi'baynu ku midoobay ganacsi isuguma inaan imanin qabiil isuguma inaan imanin guruud iyo saaxiibtinimona isuguma inaan imanin waxaynu isugu nimid mabaadi' weyn mabaadi'daasi qof kasta oo adeegaya oo markaa aaminsan midabku doona ha lahaado muuqaalku doona ha lahaado xaafadku doona ha kasoo jeedo walaalkeen buu ahaanaya qof kasta oo kasoo horjeedana waxa weeye waynu kala duwan mararka qaarkoodna cadowgeenu noqdaaba laga yaaba haddii uu inaga hor yimaado oo markii ayna inuu inagula dagaalamo ay noqotana cadowgeen buu jiri karay waad ogtihiin wadadii dheereedaynu soo maray iyo wixii aynu soo maray inteenan baa iskaga soo hadhay inta la mid sababtay isugu soo hadhnay innagu baa isku hilbadirnay sabab baa isku hilbadirnay wax alla wixii kale dadkeeninu intan baa dadkaynu saaxiibada wada ahayn aqrabada wada ahayn haddii kor loo sikacana qawaa'ilkan aynu wada ahayn intan ma ah iyo inta lamida midna way ka badan laakiin inteena waxa isku keen reebay ee isku soo keen reebay ee aynu isugu hilbadirnay waxa weeyaan hal mabda' bayna aaminsanay mabda'aas oo leh shuruuc iyo xeerada lagu hago oo la raaco taasaynu ku soo gaarnayaan haddii aynu aragno in halgankeena mabaadi'diisa iyo wixiisa uu cid shaki ka galo in la fadhiisto oo la isweydiiyo weeye oo mid baynu soo soconeen wax daliilaa jirta haddii habdhaqankii iyo shuruucdii kale ee mabaadi'da aan ahayn laakiin lagu gaarayay waxyaaba daliil laga dareemo in la isweydiiyo weeye si saraaxal in intii la isu soo hor fadhiista la isweydiiyo weye naftuuraha walaalkii waa naftuura kale wey aabbihii iyo hooyadii iyo marar fara badan wixii waajiba diiniga aan ka ahayn waxa weeye isagaa uga sokeeya cidna layna tilmaami maayo waxaan xusuustaa meelo fara badan rag badan oo naftuurayaaba meesha iga muuqdana ay garanayaan xaaladii aynu ku jirtay iyo marar fara badan leeyahay intii badnaydba dadkii la raagsanayey dadkii madaxee la gadayey inay ahaayeen dadka inoogu aqrabaysan inoogu dhowni ahaayeen qabiilkii laga soo tago dadka inoogu dhowni ahaayeen baan garanaynaa waxaan iloobaynin annaga oo duruuf adag soo maray in badan soo maray naftuurayaaba mayid ka soo khilaafsanay oo gaaji iyo oor u dhintay in aanu ku soo baxno reer aanu kolkaa is leenahay ehelkii baa u timaadeen oo aanu aaminsannahay inaanu ka soo baxnay duruuftii adkayd oo ay noqotay dabilkiina lagu qaban lahaa waxaan
iloobayn naftiihurayaan la qabtay oo reerkaas uu qabtay ehelka ah oo markii dambe geed isku maray inaan cadowga loo dhiibin weydiistay iyagu inay jiraan markii dambe ay ku jireen meesha taas waxaan u soo qaadanaya shalay toole ninka saas sameynayay ee naftiihuraha waxaa ku sameynayay maanta inuu adiga jeel kula noqdo naftiihurihii kale ee walaalkaa ahaa ee adiga kula dhimanayaya in uu noqdo muxuu ahaay cadow ama ninkaasi horgoolo noqdo waxyaabaha qariibka ah bay ka mid tahay aynu meelaha mararka qaarkood ugu dhimanayno halganka intaynu socono ee waddadaa dheer ay tahay waxaa loo baahan yahay inaynu ogaano shalay markii xabaddu dhacaysay markaynu magaalada joognay inaad aabbaha iyo hooyada ka qariso meesha aad joogto teleefonkaaga aad ka qariso laakiin qof kale oo jeelka inaad siiso oo tidhahda halkaasaad joogaa iga warhay waxa keenaya waa kuu ahaa mabdi abu ah waxaa loo baahan yahay marka mabdii noocaa ahaa haddii